بسم الله ربي يسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدنيال يومروين كسودو هذا كورسدني برشادة كريبتو كارسيغا gaar ahaan qaybteeda beginner level course insha Allah taala casharkeena maanta ama cutubkaani waxaan uga hadli doonaa cryptocurrency history-ga ayaan ku baran doonaa insha Allah taala sababtoo ah waxaan rabnaa si ay inoo noqoto qaybtaani marka dhiirigelin iyo motivation iyo marka riixitaan inay nagu sameyso oo si aan marka concept aan uga qaadano marka hore kadibna marka aan uga dayno dadkaani taariikhdooda kooban markana la wadaagi doono iyo sida ay u aaminsan yihiin iyo waxa ay ka aaminsan yihiin iyo si ay u arkaan cryptocurrency-ga maanta la joogo. طبعا كل وقتigan la joogo cryptocurrency sharaxaad sidaas ah uma baahna sababtoo waxaan joognaa 2024 gabagabadiisa 2025 ayaa marka maalmo qura naga xigta marka sida darteed ma ahan xilligii 2010 iyo 2015 iyo 2020 xitaa ma ahan oo Soomaalida concept fiican kama haysanin balse maanta dhalinyarta Soomaaliyeed aad iyo aad ay marka ula socdaan waxyaabo update-ka tiknoolajiyada iyo sidoo kale suuqaani cryptocurrency-ga marka lagu magacaabo iyo guud ahaanba suuqaani marka hadaba marka casharadani waxaan ku baran doonaa insha Allah taala marka cryptocurrency history-geeda ayaan ku baran doonaa casharka maanta aan qaadanaynana waa part 1 waaye marka laga hadlayo cryptocurrency gaar ahaan qaybtani Bitcoin marka laga hadlayo waxaa jira shirkado fara badan iyo sidoo kale individuals ama shakhsiyaad oo aad iyo aad marka looga yaqaano iibsashada Bitcoin-ka ayaa jira marka qaar kamid ah ayaan maanta insha Allah taala si kooban aan uga hadli doonaa insha Allah taala. dadkaasi marka waxay isku jiraan waa shakhsiyaadna way noqon karaan mararka qaarna waxay yihiinba waa dad hogaamiyaal ah oo marka shirkado waaweyn oo kuwa maanta caalamka ugu waaweyn oo stock marketska marka laga hadlayo xitaa marka saameyn weyn ku leh number fiican kaga jira waliba ay marka madax ka yihiin ama ay leeyihiin ama ay asaasiyaal ay ka yihiin marka hadaba dadkaasi waxa ugu horeeya oo maanta aan ku soo qaadanayno waa qofkaani lagu magacaabo Elon Musk qof walba marka waa uu garanaya waqtigan la joogo 2024 ilaa iyo 2025 wixii ka dambeeya horey ayaa marka ay u sii baran doonaan dadka oo idil adduunka ku nool gaar ahaan Soomaalida iyaduna waxay ka mid tahay dadka hadda la soo qabsanayo oo meel fiican maraysa marka dhanka cryptocurrency-ga la jaanqaadkiisa inkastoo dawladdeena weli aysan marka ogeyn waxyaabahan cryptocurrency-ga iyo aysan macluumaad fiican xitaa aysan ka haysanin halka dawladaha qaar marka ku hata nagu soo dhow Afrika aan islanahay oo ay ka mid tahay Kenya ay ka qaadayso shacabkeeda oo ku jira suuqaani lacag marka oo ma taxi ay ka qaadayso canshuur ay ka qaadayso marka balse insha Allah taala kulli waan gaari doonaa xilligeeda marka la gaaro anaguna sidoo kale balse hadda dadka marka oo isku tashanaya oo shakhsiyaadka oo qof walba marka dantiisa iyo mustaqbalkiisa ka fakaraya ayaa hadda danaynaya oo baranaya oo marka maalgashi sameynaya trade ku sameynaya marka Elon Musk ayaa kamid ah dadka aan rabno maanta inaan ku soo qaadano casharkeena ugu horeeya saan wada ogsoonahay Elon Musk waa chief and CEO-ga waaye shirkadda SpaceX lagu magacaabo sidoo kalena waa maamulaha shirkadda weyn ee Tesla waaye Elon Musk marka aad iyo aad ayuu waxa uu u maalgashtaa cryptocurrency-ga gaar ahaan Bitcoin waliba ayuu aad iyo aad lacag far badan u geliyaa marka hadaba marka waxaan isla arki doonaa Elon Musk maalgashiga uu ku sameeyay Bitcoin iyo sidoo kale meesha ay gaarayso iyo lacagaha marka estimation-ka uu geliyay ayaan insha Allah taala aan isla arki doonaa qaybtaani marka aan tagno Google-ka. Okay, hagaag hadaba saad u jeedin halkan waxa lagu leeyahay Tesla's Bitcoin investment hits nearly 2 billion ayaa lagu leeyahay waxay gaaraysaa ku dhawaad 2 billion ayaa marka ku maalgashteen shirkadani lagu magacaabo Tesla oo Elon Musk uu madax ka yahay ayaa lagu leeyahay marka Elon Musk cryptocurrency-ga dhankiisa lagama maro gaar ahaan qaybta Bitcoin-ka qaybtaasi ah lagama maro marka waxa qoray qoraalkani maqaalkani Forbes ayaa qortay marka intaas kadib qofka labaad aan rabno maanta waa inaan idin la wadaago
waa Michael Saylor waaye marka qofkaasi oo ah chairman and CEO of MicroStrategy. shirkadani lagu magacaabo MicroStrategy qofka CEO-ga ka ah oo sidoo kalena German-ka ka waaye qofkaasi asiguna sidoo kale halkan haddii aan fiirino waxaad u jeedaa waxa lagu leeyahay qofkani waxa uu sameeyay marka the company today's announcement that during the period between October 31, 2024 and November 10, 2024 the company acquired approximately 27,200 bitcoins for approximately 2.03 billion in cash. waxay ku bixisay shirkadda marka Tesla lagu magacaabo MicroStrategy shirkadani lagu magacaabo waxay ku bixisay inta u dhaxaysay October 13keeda iyo 2024 ilaa November 10keeda 2024 waxay iibsatay approximately lisaan ama ku dhawaad 27,200 bitcoins ayay iibsatay waxayna ku iibisay lacag gaaraysa oo cash ah waliba 2.03 billion ay ku iibisay marka waxaa lagu leeyahay marka shirkadani MicroStrategy aad iyo aad ay marka u iibsadaan bitcoin waliba bil walba sanad walba ay iibsadaan marka halkan waxaad u jeedaa marka total bitcoin holdings ayaad u jeedaa 2023 bisha 12aad 31geeda waxaad u jeedaa waxay haysteen 189,151 ayay haysteen sagaalka ama soddonka bisha sagaalaad 2024 ilaa 11ka bisha tobanaad bisha 11aad 10keeda 2024 waxay haysteen lacagtaasi ama intaasoo bitcoin 252,220 sidoo kale 279,420 oo bitcoin waaye ugu marka qaabkaasi waaye marka shirkadani MicroStrategy lagu magacaabo ayaduna aad iyo aad ay u danaynaysaa marka cryptocurrency-ga halkan haddii aan fiirino MicroStrategy announced BTC and ATM activity ay lagu leeyahay raised 2.03 billion ay gaadhay budget waxayna ku iibsatay 27,200 BTC ay ku iibsatay now holds 279,420 BTC ayay haysataa marka November 11keeda 2024 marka qof intaasi oo lacaga oo haysta 2.03 billion ayaa lagu iibsanaya bitcoin qof intaasi oo lacaga oo haysta ayaa haddana waxaad arkaysaa inuu bitcoin maalin walba ama bil walba uu iibsanayo markay hoos soo dhacdo hore ka iibsanayo ayaad arkaysaa marka bitcoin raqiiqdii lama dhaliilsan karo inay tahay marka hooyada lacagaha digital currency-ga oo marka qof walbana maanta xitaa dawladaha ayaa ku tartamaya sanadkan 2025 qof walba inuu keyd ka samaysto bitcoin maadaama maximum supply-giisa uu yahay kaliya 21 milyan oo bitcoin marka sidaa darteed qof walba waxaa raba inuu maalgashi uu ka samaysto dawladaha waaweyn xitaa kuwa Aasiya ayaa marka kamid ah dawladahaasi qodobkeena xiga insha Allah taala siguna waxaan idinkula wadaagi doonaa qofka saddexaad oo lagu magacaabo Mark Anderson ayaa lagu magacaabo qofkani waa shakhsi weeyaan Mark Anderson asiguna wuxuu maalgashi ku samaystay ilaa iyo 50 milyan oo lacagta dollarka ayaa ku samaystay maalgashi asigoo iibsanayo bitcoin ku maalgashtay marka 50 milyan oo marka dhowr sano ka hor ahayd waliba oo ku maalgashtay marka bitcoin marka qiyaas adigu 50 milyan imisa bitcoin ay goynaysaa ama ay gaaraysaa sidoo kalena waqtigan la joogo maanta bitcoin oo 100 iyo abaf maraysa marka qiimaheeda imisa qofkaasi lacaga uu ka faa'iiday uu ka helay marka adigu qiyaas marka qofka inoo xiga arsiguna oo ugu dambeeya qofkani lagu magacaabo waa gabadhaas waxaa lagu magacaabaa Cathia Wood ayaa lagu magacaabaa Cathia Wood waa founderka and CEO-ga shirkadani lagu magacaabo ARK Investment gabadhani ayaduna waxay ka mid tahay dadka aadka iyo aadka marka u danaynaya ayay ka mid tahay bitcoin-ta aadka u daneeya ay ka mid tahay Cathia Wood marka waxay aad iyo aad marka inta badan ayaduna ay uga hadashaa marka bitcoin xitaa mararka qaar waxay shirarkeeda ay ku sheegtaa inay shirkadani ama aan iraade bitcoin ay gaari karto xitaa ilaa 500 oo
oo kun oo dollar ay gaari karto ay ku sheegtaa marka shirarka ka soo qayb galaysa marka ay ka hadlayso marka waa gabar aad iyaduna bro bitcoin ama bro cryptocurrency waaye oo dadka taageersan oo ku faraxsan oo bitcoin-ka ama cryptocurrency guud ahaan waaye gaar ahaan bitcoin marka insha Allah taala waxaan rajaynayaa qaybtaani casharkan ugu horeeya oo history of cryptocurrency-ga inaan isla fahnay rajaynaya waxaan idin leeyahay marka soo dhawaada dhamaantiina والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.